بسم الله الرحمن الرحيم. معنا ديارة إثيوبيان إيرلاين هي ديارة قطر إيرويز أيا سكون إيرلاين دم مركاسا صدق قولوا فيد كروكا أفردم فيد قل وعي تاكاني كانت هاي سيفيل أفيشي كصوماليا صدقوا كصوماليان ويمانج قرينيان وحين كو سمينيان اسمه بدل ديارة قطر إيرويز غرب كو حرن ayaa tusiyay in diyaarad kale ay waxyar soo jiraan markaasoo baylot kor u kacay hadii kale waa isku dhici lahaayeen Ethiopian Airlines qadar Airways tani marka maxay keenaysaa in civil aviation-kii qaramada midoobay dib loogu celiyo ama meelka la geeyo control laanu way xakameyn la yihiin sirdoonka Soomaaliya iyo saraakiisha civil aviation-ka way xakameyn la yihiin Soomaaliland qorshaha ay wato meesha waa isku go'aya meesha la soo baturayo waxa weey shaqaalaha lama hubo shaqaalaha civil aviation-ka lama hubo say wax u wadaan sidoo kale civil aviation-ka waa la siyaasadeynaya civil aviation-ka waxa fiican in siyaasadeynta laga daayo tusaale ahaan diyaaradda isaaqa oo garaabita ah loo diray ayaa la yiri mataqana ambalaas batii karto qof xanuunsanaya diyaarad loo diray hawada ma geli karto waa qalad وخلط marka waxa way waasho waa isku sii dhalaalaysa laakiin arrin bay soo ogeyn dadka Soomaaliyeed labada olay Muuse Xasan waa iska warqabaan waxa la jilayna waa riwaayad rumaysan ama hay rumaysan riwaayad baa la jiraya waxa way nimankan badda Soomaaliya u wareejiyay Turkida lagu leeyahay waa gacanta midiga Itoobiya weeyba hadda Itoobiya aragtay Turkina waa aragtay bayrdaaqa oo Tigray lagu baabashiyaa bixi Turkiya bixis bemba dadku lagu cabaya dadku bemba u dhimanayaan waxana waa la iska warqabaa waana one company hal shirkad weey qof kasta dambay leedahay alxaaji Muuse Biixina shacabku ka caasan xisbi mucaaradku jahaynaya oo leeyahay dagaal waxaan ku jirnaa Soomaaliya alxaaji xasan sheekhna wuxuu jeeynayaa dareenka shacabka oo dastuurku rabaa inuu bedelo oo ka saaro awoodda ra'iisul wasaaraha meesha agaal shirkad oo Djibouti iyo Soomaaliya Ethiopia laga leeyahay ayaa badda Soomaaliya Turkiga gacanta u gelisay lacagta adduunka ka soo baxaysa lacagtaasi 100% Soomaaliya ka soo gaarayso waxanta la qaadanaya shidaalka la qodanaya badda lagu tagrifalaya kalluumaysatana la dhibaataynaya cilmaariyiin baa gacanta loo gelinaya waana dawlad naata ka tirsan oo awood leh heshiiska la saxiixay tobasarood dalka waa la dhuuqaya dadkan waa la qaadanaya wax rajaana male waana ka dar oo dibadal dalka waxa maamulay ganacsato tijaar dhigmirata oo umada aan waxba ihsaan u sameeyeen wadaara cala soo dabashigeeda marxuna ciyaarsiiso saasa simana ku jaa ha biqlaysa farta ku sii